ومالين سنين لحي طبعا كبيش جون لبدا كون شن إلى بعتان كبرنامج كان مانتا وحن كو قاعدة دقي دونا وضيجي نتنياهو ها رئيس الوزراء هدلك إسرائيل أو أفكا فورتي استحلي أسوبهم بهنا دولة مريكانكا إن أي كسوق يبقشو دقالك ساقا إيا إيران ودحيا رئيس الوزراء أو رئيسي قطة ديرسيي تلفزيونكا فوكس نيوز دالكن مريكانكا لغالي هاي أيا وحا وشيغي كنا نحصدي in dowladda Iran ay qatar ku tahay asaga iyo dowladdiisa guud ahaanna ay qatar ku tahay wadamada caalamka oo dhan waxa uu sheegay in ay xukuumaddaasi ay tahay xukuumadda ugu qatarta badan adduunka waa sida hadalka isaga uu u dhigaye haddii ay gacanta ku dhigaanna hubka sida ba'an wax u gumaada qumbuladaha nuclearka xambaara waxa ay sheegay in ay isticmaali doonaan in lagu baabi'iyo dalkiisa waxa sidoo kale uu sheegay in dowladda Iran ay taageerada ugu faraha badan ay siiso xuutiyiinta iyo kooxo kale sida Hezbollah iyo Hamas oo kale oo uu ku sheegay isaga soo hadalka u dhigay weeye uu ku sheegay in ay yihiin wadamo ama jabhado u shaqeeya dowladda Iran marka wuxuu sheegay haddii Iran ay gacanta ku dhigto hubka sida baan wax u gumaada nuclearka in ay la wadaagayso nimankan marka waxay noqon doontaa buu yiri in Middle Eastiga ama bariga dhexe oo dhan uu noqon doono meel ay ka howlgalaan jabhado isaga cadow ku ah oo hub wax sida baan wax u gumaada nuclearka haysta ayuu sheegay waxa sidoo kale marka uu rabay in uu ka dhaadhacsiiyo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump in qatarta kaga soo wajahan Iran ayuu sida uu isaga hadalka u dhigay weeye waxa uu sheegay in Iran uu u taqaano asaga inay u taqaano shaydaankii yaraa Mareykankana ay u taqaano shaydaankii weynaa marka wuxuu ku beer la xusanayay madaxweynaha Donald Trump oo uu lahaa dagaalka nagala soo qayb gal waxaad ogtihiin in wadanka Israel ay ka haysato dhibaato xagga Iran marka loo fiiriyo oo iyadu dhulka hoostiisa meel dhaadheer geysatay teknolojiyada ay ku leedahay xagga bacriminta iyo naxnaaxinta uraniumka oo nuclearka ay ugu tala gashay marka yahuud ayaa waxa ay sheegeen ama ra'iisul wasaarahooda ayaa wuxuu sheegay in aysan awood u lahayn in ay gantaalada ay ku garaacayaan ama diyaaradaha yahuuda gantaalaha ay soo qaadi karaan aysan awood u lahayn in ay gudaha u galaan si ay waxyeello ugu geystaan xoog leh nuclearka Iran meelaha hoose ee uu yaallo marka waxa uu ka codsanayay aad sida moodo wuxuu codsanayay in laga caawiyo in gantaalaha 30,000 oo pound ama 1,500 oo kilogram oo ay qaado kaliya diyaaradaha B2ga ama B52ga ee dalkan Mareykanka laga leeyahay awood u leeyihiin inay qaadaan in lagu dhufto wadanka Iran so si asaas u dhacdo ayuu wuxuu isu bihinayay in shacab laga soo weeraray in Iran ayaga yahuuda ahaantooda targetkooda uu yahay in ay weeraraan kaliya dadka saynisyahaniinta iyo meelaha Iran wax u yaalaan iyo xeeraha militariga inkasta oo Iran ay sheegayso arrin ka duwan in uu jiro haddana isaga saas ayuu sheegay markii la weydiiyay la dhahay dadkan shacabka oo meesha ku leeday oo aad bambayseen muxuu ahaa waxa uu sheegay in Iran ay ku leedahay xeryaha militariga meelo dad shacab dhaxbartankooda inay ku leedahay marka odayga wuxuu ku guul dareystay sida hadda ii muuqata iyo wararka ay sheegayaan in uu helo awood uu ku dalooliyo dhulka hoostiisa meesha Iran ay wax geysatay wax gaarayo waxa Fox News ay sheegtay sidoo kale in bamka loo awoodi kara inuu halkaas dalooliyo kaliya Mareykanka uu haysto diyaarad qaadi karta marka wuxuu sheegay in Iran ay xiri doonto marinka Hormuz oo gaaska Mareykanka iyo adduunkaba uu soo wada maro wuxuu sheegay in gaaska dalka Mareykanka uu aad qaali u noqon doono wuxuu sheegay in Mareykankana
iiraan aysan kala jecleen iyaga iyo yuhuudda waa arrimo beerlaxawsi ah waxaa marka maanta warkii ugu dambeeyay haddeer soo dhacay wuxuu ahaa in maanta gantaalihii ay soo tuuraysay iiraan mid ka mid ah uu gees kaga dhacay safaaradda dalka maraykanka yuhuudda ayaa marka waxa ay ka dhigaysaa in si ulakac ah loogu garaacay gantaalka oo safaaradda loogu talagalay taasna ay ka dhigan tahay in maraykanka interestigiisii uu ka lahaa dalka yuhuudda iyo safaaradihiisii in la garaacayo so odaygii netanyahu ahaa waxa uu sheegay in gantaalaha badankood ay tabar u waayeen in ay qabato aaladoodii iron domeka oo difaaca iyaga iska lahaayeen in sidoo kale ay qabato tii maraykanka oo meesha taallay sidaas si lamidana wuxuu sheegay in ay haddeer dad shacaba laga baabi'inayo inkastoo dhimashada uu waxyar 12 ah ay ku sheegeen in ay yihiin haddana waxa ay sheegayaan in ku dhowaad 500 oo qof ay ku dhaawacmeen gantaalada ka soo baxayo iiraan marka ninka odayga ahaa waxa uu already bilaabay sidii caadiga ahaydba in uu isbihinbihiyo oo uu isku dayo in maraykanka uu cagaha u soo geliyo marka aan eegno dadka maraykanka ah inta jooga sidee ay uga falceliyeen waxa ay sheegeen in khudbadda hadda uu ka jeediyey iyo waraysiga uu siiyey Fox News uu la mid yahay waraysi hadda ka hor 2002 uu siiyey telefishinada dalka maraykanka kaas oo uu ku sheegay in madaxweynaha dalka Ciraaq Saddam Hussein oo xilligaas joogay uu samaysanayo hubka wax gumaada weapons of mass destruction buu yiri sidoo kalena wuxuu sheegay in ay arrinkaas uu u diyaar garoobayo in sida hadda uu Iiraan uga warramay si lamid ah ayuu waraysigan u bixiyay hatta waxay yiraahdeen erayadii ma uusan bedelin dadka Amerikaanka ah oo soo qaadanayay khudbadan hadda uu jeediyey iyo khudbadii waagaas uu jeediyey waagaas marka waxa u suurta gashay in Ciraaq hawada laga saaro maraykankana uu dagaal toos ah uu la galo wadanka Ciraaq 2016 Donald Trump mar uu xafiiska u ordaayay ayaa isagana waxa uu sheegay in dagaalkii Ciraaq hubkii la sheegayna uu been ahaa wixii lagu sheegayna aysan waxba ka jirin UN-tana ay baaritaan xoog leh ku samaysay laguna ogaaday in war akhbaartan uu bixiyey Netanyahu sanadkaas 2002 iyo tan hadda maanta uu bixinayo inay isku mid yihiin so tii 2002 waxay noqotay buu yiri Trump 2016kii in mid beena waxaana nagaga baxday buu dhahay lacag gaaraysa $2 trillion marka odayga Netanyahu ah waa soo shiday sida haddeer u muuqata wana waa isbihinbihinaya oo wuxuu iska dhigayaa nin la dhibaateeyey oo shacabkiisii la leynayo sida caadiga ah oo ay samayn jireenba xilliga arrimaha markay ka socdeen Gaza laakiin asaga tan uu geysanayo ma sheegayo waxa uu kaliya uu ku sheegay in ay target gareynayaan ragga militariga ka xukuma waxa inay target gareynayaan scientistiyalka xagga ku xeel dheer xagga nuclearka iyo waxa kale oo uu sheegay asaga ahaantiisa in uu rabo in uu ka sameeyo meesha regime change ama xukuumadda uu ka bedelo inkastoo oo maraykanka madaxweynaha dalka maraykanka uu ka diiday arrinkaas markii ay sheegeen inay rabeen in Ayatollah Khomeini ay ka taqluusaan oo ay regimeka ama xukuumadda Iran ay saas bedel ugu helaan maraykanka ayaa waxa la sheegay in gaashaanka uu u daruuray arrinkaas oo uu ka diiday Donald Trumpna hadalkaas waa qaadan kari waayay marka odayga Netanyahu ahaa isma uusan lahayn Iran baa awoodaha noocana gantaalada hypersonic iyo gantaalada la soo baxaysa ballistiga loo yaqaano oo ismana uusan lahayn de alaaba noocana ayaa ku soo gaari kara maadaama masaafada u dhaxaysa Iran iyo Israel ay aad u kala fog tahay marka waxaan rabnaa insha Allah taala in aan akhbaarahan wixii ka soo kordha aan soo dayno latest news nagu soo xiran insha Allah taala don't forget to subscribe to the channel like and share the video insha Allah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh